You follow me, guys. Go down. أي معناها مدير كنيا وحن أمهد علينا بعض بورتك ليستر كسوق قليل أي معناها إنتر لندن مانشستر برمنغهام iyo magaalooyinka kale aad iyo aad ugu faraxsanahay marka ma farax laga gudoon aniga dhamaan jaalida UK dhamaan diaspora marka waxaan ku leeyahay asantay aniga waxaan kugu duceynaynaa guushan iyo guul iyo meel ka dheerna gaar insha Allah. We actually close our ceremony. We would like to welcome our chairman to give certificate to Mohammed Farah. minute كل يوعك صاحب بالدنيا ليش شرفتك أكبر محسنتين تدخل غير غليمانها وأيانا تدخل ملايين إنه بلابي بلابي ما هاي تصل سمية أنا يربى كبلابي لبي تونجرا يعني كأنا يقوى على كافي كيو مرة كافي بعد إنه أسكمل سحبيا شيء ويجوجد أرض مكفي عليه ما قال هابي يقول أرض كها أنا وحن يقولين قلب تريني بدل سماية مكا ما أدري هيك بدل قاري أو واحد تريني بدل يو إنكراج يو واحد تسكت يدي عشان ما بدفع عندي قاعدين كتير مكا واحد قصة هذا تريني سماية شيء أو قاري سماية شا مكا ألبو ما سنتي مدن كورن مانتي كسوق قبلكاga shirkani aan raadi ciyaarahan ka dhacay Leicester إن أدي هذا أمها سنتهاي إن مادام إن قبلنا دوتكم أي كسوق قبلين إن وحنا ليه هاي ما أنت إن مارتي إن ترتن عجيبة كنا ومعناها بدلك إن باكستان إن وبابولي قدومية سنة أدي أنا فرحنا لأن يرب بدنا الصومالية والدأ ولا بدنا أي كسوق قبلين إلى لحجر إلى لحدجر أي ترتكاسي كسوق قبلين وأنا ترتن وحوها أوصلنا الله ونلقوا عزومي أنا كنا وحنا كنمد نورث ويست مقالة مانشستر أنا جو كم بدها دتك ممبر كها وفدي كسعودي مقالة مانشستر هي كوحدة ويدود بارك سبورتس كلاب وفدي كانوا حاجة جامينة محمد إسماعيل زير ستة مركا أسيقهم كوريجنا يا هذا الله ذا sidoo saaxiibkay ama walaalkay cadda u yiri hadaawe waxaanu ka soo qayb galnay organization kaariska oo dadkii dhibaatadu ay gaadhay star oo walaalaheenayda muslimka ah oo ay ka soo qayb galeen dhalinyaro iyo waayeel iyo dumar si fiicanna u dhacay si fiicanna loo abaabulay sida daraaddeed anoo ka socda guddigii Manchester ka yimid ee sportiga waxaan rajo fiican iyo guul fiican inuu ka gaari karnaa in sportigu kii dhalinaya isukeenka ma noqoto xabga bini aadamnimo ha noqoto iyo macaawinooyinka cid kastoo muslim loo fidiyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كيم لندن وأنا لكم عزومي مانتي 5K fun run وكشمير لو أرونا أدبي ولا عادي كنتي أن دنيا ربنا الصومالية أيها كسب هذا ماشاس أو أنا لسنين أول ويأرد كرامبا مرة طول ما فرح مانتي أن وأنا كمدها أنا كقاضي بلد الكويت من هذا يدوين
marka aad buu u fiicnay barnaamijkaas ku dhacay waxaa kaloo ku faraxsanahay dadkii badnaa oo waayii hore isu keen dambeeyay sida Cadaay Biriq زير ست محمد إسماعيل شفكة يوسف وأن علمي دقرة أو ماشي نقول كلني runtii markasta xaflad la qabto waxa isku aragta ilaa afar qofood oo hore isku weysanid marka wariye shafka aad baad u mahadsan tahay gobolada.com السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أفاد أحمد كان يمين مقالة مانشستر شاليد سبورتس كمقالة مانشستر أحرم وحقين عن درين كي جمانتا عن هالكن كشيء هانتي مالين عاد في عم بهيد مانتا محمد فارح oo ma garanaysa haliyay Soomaaliyeeda isla markaana 10 kun iyo 5 kun ba European champion ah ayaa ka soo qayb galay orodkii ka dhacay magaalada Leicester runtii waxay ahayd xaflad aad looga soo shaqeeyay oo si habsami ah u dhacaysay anagu Whitwood Park Manchester Sports Club waxa aanu wadnay afar dhalinyaro oo ka soo qayb galay orodka 5 kuna waxaanu galnay kaalinta saddexaad oo kaalinta koowaad waxa ku guuleystay سوري عبد الله oo ka socday Nottingham عبد الرحمن oo ka socday Leicester kaalinta labaad Umar oo Manchester ka socday kaalinta saddexaad oo galay afraad iyo shanaadna Manchester baa iyana gashay haddaan si fiican u xasuusto fu'aadhaan anu runtii waxaanu jecelnahay inaanu Atleticaas oo kale aanu qaybta Manchester aanu ka qabanno Maxamed Faaraxna waa ka wada hadalnay iyo family-giisa oo la socday run ahaantii waa ka wada hadalnay in ay jecel yihiin in ay nagala soo qayb galaan nooradka oo mar ay noogu yimaadaan runtii dareenkaygu saas waxa runtii waxaadna moodaa ciid inay maanta ahayd run ahaantii marka aad eegtid wariye shafka aad ay u mahadsantihiin ka soo qayb galka wanaagsan ka soo qayb gashaan xafladan qiimaha badan uu soo abaabulay saaxiibkan sanay iyo Mo Faarax oo nooga yimid magaalada London idinkana aad ugu mahadsantiin sida uga soo qayb gasheen maadaama ka timaadeen meesha London oo waqti badan aad soo geliseen aad u mahadsantiin waa arrin loo baahnaa in la qabto arrimahan oo kale oo sportiga marka Mo Faarax aad u mahadsan yahay idinkana aad u mahadsantiin meedidiina iyo waxyaalaha ka qabateen Soomaali badan ayaa ka soo qayb gashay waa nin celebrity marka insha Allah taala in lagu daydo isagana waanooyin fiican ayuu nasiyay insha Allah waanooyinkaas waa qaadanayna aad u mahadsantiin idinkana sidii aad uga soo qayb gasheen xafladan muhiimka ah maantay meesha ciyaaro ayaa ka dhacay dad ayaa orada ka soo qayb galay meesha maxay ku saabsanayeen ciyaarahaasi maxaa orodadaasi abaabulkaasi muxuu ahay abaabulkan waxa soo abaabulay yar nin magaalada degan oo waligiis sportiga soo abaabuli jiray Cabdullaahi Sane ayaa soo abaabulay annagana volunteer ahaan ayaan kula shaqeynay waa la shaqeynaynay wuxuuna ku saabsanaa charity loo aruurinayay Kashmir Orphans ama ciyaalka agoonta oo Kashmir ayuu ku saabsanaa waxa ka soo qayb galo aragteen dawladdii ayaa joogtay oo ka soo qayb gashay MBA badan ayaa joogay dad badan oo ordo ayaa ka soo qayb galay Soomaali badan ayaa ka soo qayb gashay Manchester Birmingham Bristol Leicester dadku way ku yaraayeen kulleeto waa insha Allah taala isku dayna inaan wacyi gelino si ay u soo bataan marka barnaamijku wuxuu ku saabsanaa in orphanska dadka agoonta wax lagu taro ayuu ahaa insha Allah waana lagu guuleystay wixii ka soo baxayna kulleeto website-yada ayaa la soo geli doonaa sida website-kiina iyo website fara badan oo sport wax الله تعالى لسوق لدونا عن أيها adigu waxaad ka mid tahay dadka ciyaaraha ka dhaca Leicester ama magaaladani hadda aan joogno qaban qaabiye miyaad ka mid tahay maadaama aan kaaga jeedo inaad wadatid fanaanad ama ba jaakad ay ku qoran tahay magac koox ama football club Leicester Lions aad ma san tahay aniga magacayga waa golet cilmi daqara cilmi laakiin daqaran kuna Leicester daqara liirada كلابكان وكلاب كدسن مقالة Leicester Lions Football Club wuxuu hayaa kooxo kala duwan ilaa 8 ilaa 7 ilaa 8 kooxood ayuu hayaa oo different age ah marka waa club Soomaaliyeed magaca Leicester ayaan wadana maadaama Soomaali badan ay degantaa meeshii 15 16 kun oo Soomaaliya magacii inaan way ficnaan lahayd inaan qaado hore iyo koox ayaa marka waa koox magaalada ka dhisan oo Soomaali fara badan ay ka tirsan yihiin iyo ajnabiba ay macnaha anigana waxaan kamid ahaa dadku qaban qaabiya ciyaaraha ka dhaca Leicester sanad walba waa sanadkii 20aad ayaan ku dhex jiray oo maleynaya ciyaaraha horena waxaan uga soo qaban qaabi jiray Holland magaalada Nijmegen iyo Arnhem ayaa dadku badan si fiican iga yaqaanaa aad iyo aad u mahadsantahay aad u mahadsantahay